السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارات شرفت لميل كستoo joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena barashada shaybaarka oo idinku soo gudbina casharada xalqa caafimaadka maanta insha Allah waxaan soo qaadanaynaa sambabka dhowr su'aalood aynu iska weydiinayna sambabo maxaa tahay xagee ayuu ku yaalaa waa maxay shaqadiisu xanuunada ku dhaca afartii su'aalood aynu iska weydiin jirnay casharaantii hore aan idin soo gudbinay waa kale ayaan iska weydiinayna insha Allah horta sambabku guud ahaan marka u horeysa waa laba xubnood oo neefsi oo waaweyn oo ka tirsan nidaamka neefsiga kuwaas oo mas'uul ka ah qaadida oksijiinta oo inay oksijiinta qaadaan ay jirka geeyaan iyo inay ka soo saaraan carbon dioxide-ka oo qashin ahaan loo saarayo iyadoo neefsi ahaan loo soo saarayo sambabku wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan jirka bini'aadanka sababtoo ah unug kasta oo jirka bini'aadanka midig wuxuu u baahan yahay oksijiin waxaan odhan karnaa muhiimadda koobaad ama nolosha number 1 waxa uu ah oksijiin in la helo oksijiintana dee waxay ku shaqeynaysaa waa sambabka qodobka labaad ee isweydiina waxa weeye xagee buu ku yaalaa sambabku wuxuu ku yaalaa gudaha laabta wadnaha ayuu labada dhinac ka kala xigaa feeraha hoostooda dusha muruqa diaphragm-ka la yiraahdo ayuu ku yaalaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb midig iyo bidix la yiraahdo qaybta midig waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo ama saddex luubis bay u kala qaybsantaa qaybta bidixna laba luubis bay u qaybsantaa marka qaybta bidixda sababta ay labada luub u noqotay waxa weeye maadaama oo ay ka mid tahay wadnuhu dhinac ka saaran yahay wadnuhu qaybta bidixda ayuu kulaalayaa oo ma uu dhinac ku hayaa marka xoogay in wuxuu ka qaatay qayb ka mid ah luubiskii ayuu qayb isagu haysta marka laba luubis buu noqday waana sababta uu qaybtaasi labada luub ay uga kooban tahay qodobka saddexaad ee isweydiina waxa weeye muxuu sambabku qaybaha uu ka kooban yahay sambabku wuxuu ka kooban yahay qaybo muhiim ah ay ka mid tahay bronchioles alveoli xidido unugyo iyo wax loo yaqaan pleura bronchigu horta waa labadan laamood ee keena ama sambabka labada laamood ee hawada soo geliya marka ay taraakida ka yimaadaan waa labada laamood ee hawada soo qaada waxa ku xiga alveolaha alveoligu waxa weeye waa barta uu ka dhacay isweydaarsiga gas exchange ama carbon dioxide-kana dib looga soo qaado oo dib loo soo saaro oksijiintana jirka lagu geliyo meesha waxa loo yaqaan waa alveolayaasha waxa kale oo uu ka kooban yahay xidido kuwaasoo alveolayaasha ku sii xidhan oo gudbiyo oksijiinta oo jirka iyo dhiigga dhex raaciya waxa kale oo ka samaysan unugyo jilicsan oo loo yaqaan sponge tissue muxuu ahaa morphology ahaan ama gidaaradiisa iyo qaybaha uu ka kooban yahay waxa kale oo jira pleura oo ka mid ah dabool sambabka ka ilaaliya inuu xidhmo sambab kastaana waxa uu leeyahay alveolayaal yaryar waxa ugu badan waxa weeye ilaa kumanaan alveoli oo gudaha ayuu leeyahay sambabku shaqooyinka ugu muhiimsan ee sambabku waa dhowr qaybood oo kala duwan shaqada ugu weyn ee uu sambabku qabto horta waxa weeye waa gas exchange ama isweydaarsiga oksijiinta iyo carbon dioxide-ka in oksijiinta geeyo dibadda ka soo qaado ilaa gudaha jirka geeyo ilaa xididada la raaciyo oo unug kasta la gaadhsiiyo iyo carbon dioxide-ka uuna jirku u baahnayn wasakhda in qashin ahaan loo soo saaro oo dibadda neefta loogu soo saaro sidoo kale sambabku waxyaabo ka qayb qaato waxa kamid ah hadalka ama hawada la qaadanayo iyo oksijiinta kala dhacaysa waxay xoog u caawisaa codka qofka inuu soo saaro sidoo kale waxyaabo muhiimka ah uu ka qayb qaato shaqada kamid ah sambabka waxa weeye nadiifinta dhiigga maadaama carbon dioxide dibadda looga saarayo carbon dioxide waa wasakh oo jirku u baahnayn marka waa tan dibaddii looga saarayo waa shaqooyinkiisa muhiimka ah bay ka mid tahay sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa sambabka shaqadiisa waxa maadaama oksijiin keenayso in pH dhiig isagana uu qayb muhiim ah uu ka qaato haddii qaybta ugu dambaysa ee gunaanadka tagno xanuunada ku dhaca sambabka kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah pneumonia-da waa caab ku dhaca sambabka ama inaynu naqaanoba wareen ama oo kale TB-da ama qaaxada oo kale iyadana way ku dhacdaa iyadana xanuunka asmada loo yaqaano oo ku dhaca ciriiri ku yimaada marinka hawada
oo qofkii uu oxygentii iyo wixii cidhiidhi ku noqonayaan. Waxaa jira isna bronchitis waxa loo yidhaahdo barar ku dhaca bronchiga oo bronchiga muxuu ahaa tuubooyinka waaweyn hawada keena sanbabka iyadana bronchi loo yaqaano inuu ciri ku yimaado waxa loo yaqaano barar. Kansarka isagoo sanbabka waa jira iyadana waxaa jira mar walba aynu maqalnaa biyo qofka sanbabka laga shubana way jiraan. Waxaa jira oo kale waxa loo yaqaano barar ama dillaac ku yimaada alveolayaasha yaryar ee oxygentu markay sanbabka soo dhex gasho qaada ee ku xidha xididada. Iyana sidoo kale waxyaabaha sanbabka saameeya ee xanuunada ku keena waxaa ka mid ah xanuunada faafa ee COPD-ga loo yaqaano sida qofku markuu sigaar cabo waxyaabaha uu qofka qaado oo kale kuwaas iyaguna qayb ay ka yihiin. Insha Allah maanta casharka intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa. Xoogay waxaad moodaa inaan abuursanahay oo hargab iyo hawaas ka jira. Iga raali ahaada haddaan meelaha qaar ku raftay. Aad baad mahadsantihiin sidaad kor noogu soo qaateen channelkeenu meel wanaagsan buu maraya insha Allah. Kor noo sii wada casharaanteena insha Allah saasay noogu soconayaan. Qaybahan markay dhammaano waxaynu ku laaban doonaa qaybteeni laabka insha Allah. Meel kastoo joogtaan aad baan idin salaamayaa. Casharadan aad jeclaan lahaydeen internal organs ka baxsan kulli internal organs way dhamaynaa insha Allah oo maalinba 10 ayaan soo qaadan doonaa. Wixii intaa ka dambeeyana insha Allah idinkuna noo soo gudbiya casharaanta doonaysan inaan ka soo hadalno. Xubin kasta oo jirka kamid ah shaqadeeda xagga ay ku taalo waxyaabaha jirka ay u qabato xubinta ay ku xigto insha Allah. Marka maalinta ugu dambeysana si guud baynu isugu soo wada ururin doonaa oo asayna xubnaha sida ay u kala hooseeyaan mid walba halku ku yaal mid ku sii xidhan maadaama oo ay yihiin silsilad isku wada xidhan insha Allah. Meel kasta joogtaan aad baan idin salaamaya asxaabtayda qaaliga waxaan leeyahay waqtiga iyo waaye waa idin wacnaadaan insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.